28 Juulaay sanad kasta waxaa Soomaaliya iyo wadamo badan oo caalamka ah laga xusaa maalinta cafiska Soomaaliyeed waxaana maanta munaasabad lagu weyneynaya cafiska iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda oo ay soo qaban qaabiyeen kooxda ololaha cafis ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka warfaafinta, xildhibaano, culamaa u diin iyo qaybaha bulshada oo ka kala yimid dhammaan deegaanada Soomaalida. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ololaha cafis Liibaan Cabdi Xasan iyo Cabdi Fataax Maxamuud Arizona oo ka tirsan kooxda ololaha cafis. inaynu helno bulsho caafimaad qabto ka fayow cuqdi, xasad iyo nacayb ku sifaysan cafis iyo musaamax, qalbigoodu yahay mid nadiif ah oo daahirka ah dhammaan xumaa aynu soo sheegnay. Programkan intiisa badan soo bilaabay bahda warbaahinta halkan nasaaka areetaan inta badan ayaga ugu badanba waxa ujeedka ugu weyn oo loo sameeyayna waxay ahayd oo kaliya in bal bulshada maalin kasta ay habtabinta wararka iyo arrimaha bulshada iyo waxa loo sameeynaya marka laga tago bal horta warbaahinta lafteeda ay wax soo kordhiso dadku wax ku sheegato tiraado war anaga lafteena waxaan aan ku soo kordhin marka cafis ayuu noqotay waxaan ka fikirnay in meesha boogta ugu weyn ee Soomaalida ay haysata qof walba tiiraay oo meel la jiifoorto in la soo daaweeyo. Sheekh Maxamed Iimaan Aadan oo munaasabadda uga yimid dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in aabihiis Iimaan Aadan oo la dilay isaga oo 2 jir ah ninkii dilay uu 53 sano kadib cafis ugu yimid kadibna ay iska cafiyeen maadaama cafisku yahay waxa ugu wanaagsan diinta islaamkana darajo sare looga gaaro. nimankaasi geel reerka daaqay duleedkiisa ayay ka haysteen isagu markii geeli ay nimankii ka haysteen ee shanqadhii oo maqlay dadkii soo orday buu kamid ahaa geeli baa nimankii lagu gaadhay deedna kolkay geeli la isku gaadhay bay xabad ku dhufteen sidaasuu ku dhintay iyagii marka way carareen reerkii iyo geeli iyo wixii oo dhan way ka tageen sidaasuu marka raadkoodiina ku baaba'ay. ninka 50 sano ka hor wax dilay ee haddana ilaahay intuu cumrigiisii u kaadiyey waqtigaa uu waafajiyey isagii oo aan isagii dhimanin oo nool yahay anigiina aan noolahay intii ehelka ahayd ee kalena ay nool yihiin uu ilaahay waafajiyey inuu isoo hor fadhiisto oo uu arrintaa igala hadlo taasaa aniga igala sii qariibsanaatay aabba dhimashadiisii iyo arrintaasi culayska ay leedahay. marka labadii qayboodba waan isla dhammaystiray tashi dhammaystiran baan isla qaadanay in la cafiyo. wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala iyo wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Cali Axmed ayaa ololaha cafis ku bogaadiyay hawsha adag ee bulshada u hayaan iyagoo xusay qiimaha uu leeyahay cafisku. waa waqti dambe waxaan rabaa kaliya runtii inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo teamka cafis ee barnaamijkan waqtiga badan ka soo shaqeeyay xogaal ayaan u ahaa ilaa bilowgiisii saaxiibka Cabdiweli Xasan Xaashi iyo dadkii muxuu ahaa la soo bilaabay fikraddan runtii wax weyn oo dadka Soomaaliyeed u baahnaayeen ay soo kordhiyeen waqti badan ay geliyeen baraarug badanna way keeneen oo runtii muxuu ahaa dad badan dareenkooda soo jeedisay. saxaafaddu waxa weeye waa awoodda waxa la yiraahdaa saddexaad waaye wixii ay qaadaan meel fog ay gaarsiin karaan qof kastana gurigiisa ugu geyn karaan iyo baabuurkiisa meesha joogo. marka waa bogaadinayaa baxda saxaafadda doorka ay qaateen in dadku iscafiyo kulli culimadii ayaa ka hadashay ayadihii iyo xadiistii iyo qisaskii ku saabsanaa dhaqankii islaamka iyo sida islaamku isku cafiyay iyo sida islaamku isugu asxaan falay oo isku saamaxay. marka runtii waxa weeye anigu waxaan kaliya on leeyahay hal is cafiyo waa fiican tahay in la is cafiyana waxa weeye waa wax aad u weyn waana darajo runtii qofkii maxaan ku yiraahdaa adag tahay inuu qof walba ahay oo qofkii aabaha dilay ama walaalka dilay oo ku hor fadhiya waliba adoo yar sida sheekhu uu sheegay asagoo yar dilay oo noloshaadii aabaha nin qoraa ah oo muslim ah oo Afghanistan waxa laga hayaa wuxuu yiri dambi oo dhan waxa ugu weyn tuugnimo.